ugu horreyn waxaa kusoo dhawaatay Axmed Deeqsi iyo janaalka Shumac TV adigoo ku bilaabaya magacaaga. waa ku dhawaay magacay Mascab waa Shumac TV waa ku dhawaay Aad iyo aad aad mahadsantahay. Maalmahan la soo dhaafay madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Ciro waxa uu joogaa maamulka Israa'iil Tel Aviv. weliba maaragtay waxa ay aaminsan yihiin in la ictiraafay oo maaragtay aqoonsi ay heleen. Aqoonsigaas ay Somaliland aaminsantahay adiga sidee u aragtaa? wala aqoonsi waxa la ma jiro midaasna ma jida man ka dhigi kara aniga ma jida waxa kumali aniga qof tiktoker ah inta lambar 2 lambar 2 aniga qof oo waxa business man aan qeyn baad anoo da'yara dan business sameysay ad meeshan joogtay tawfiiq Soomaa new berber waxa ma jida new berber meeshaas aniga iskale aniga waxaan social media waxaan ma jida madaxweyne Ciri waxaas wax bidii galin hala si am yaalisi aad iyo aad mahadsantahay laakiin waxa tahay muwaadin Soomaaliyeed waxa tahay wiil dhalinyar wiil macnaha rajo badan mustaqbal fog kale macnaha maaragtay dalkiisa adiga dhulkaan aan leedahay waxa uu hadlaysana waa dalkaaga sida adiga aa u aragto maxaa yeelay adiga waxa tahay Soomaali aabaha iyo waalidkaaga waxay ahaayeen Soomaali ku hadli doontana waa Soomaali marka adigoo dhiigaaga iyo Soomaalinimadaada u hadlaayo iyo dalkaaga because dalkaaga inaad difaacdo waxa uu leeyahay Soomaa sax marka fikirkaaga waa waajib mar walba horta fikirkayga sax waaye taas daalaca ka aniga laakiin jecleen horta waa wax kala gaamtaantay mana laga yaabo in aqoonsi la sii doono mana laga yaabo in la siiyo ana inta joogno ma fahamtay dalkeenana laga ma yaabo in ay dawlad anaga aan rabin ama dawlad anaga mujida aqd maartay anaga qalad noo ah inay amaado mana laga yaabo in soo gasho marka mar walba waxa taageeraysaa midnimada Soomaaliyeed mar walba Soomaaliya mar walba man kala go'is man kala go'doonto inta anaga taaganahay